السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا halkan ku jirta nala doonaysa in aan la wadaagno warbixinta company-gan AG Nutrition dhamaantiin soo dhawaada walaalayaal company-ga AG Nutrition qaybtiisa Soomaaliya ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo waxaan soo dhaweynayaa qof walba oo halka ku jira insha Allah waxaan guda galeynaa warbixinta company-gan waxa la yiraahdaa AG Nutrition company-gan waxa la yiraahdaa AG Nutrition waxa laga leeyahay dalka Malaysia waxaana la aasaasay company-gan 2011kii waxaana launch office sameeyay ama la xarig jaray ama dunida inteeda kale ku faafay May 2019kii haddana ilaa 17 wadan oo caalamka ayuu gaaray company-gan wuxuu bixiyaa fursad dhaqaale ayadoo fursadda dhaqaale laga abuurayo caafimaad bulshada la gaarsiinayo company-gan halku dhigiisa ama halhayskiisu waxa weeyaan transforming people inuu dadka bedelo kuwii xanuunsanaa ee xaaladaha caafimaad ka cabanayay inuu bedelo xaaladooda caafimaad ilaahay hadduu u qadaro oo uu ka dhigo bulsho caafimaad qabta isbedelka caafimaad ee bulshadu sameynayso ayaa bulshadii gaarsiisay dadkaas xanuunsan caafimaadkuna waxay ka sameynayaan dhaqaale company-gan waxa iska leh 3 nin oo dhalinyaro ah oo Malaysiana oo la kala yiraahdo Faiz Salah Fahmi iyo Hafiz Salah oo ah Malaysian muslimiin hadaba company-gan intaas markaan xogaa yar oo background-giisa kaga soo harno company-gan waxa soo saaray wax soo saar iskugu jira beauty care iyo cosmata iyo wax soo saar herbal ama food supplementary wax loo yaqaan wax soo saarka herbal-ka company-gu soo saaro oo ah midka hadana soo gaara waxa la yiraahdaa AG Sera qaybta hadana soo gaadha AG Sera wax soo saar laga sameeyay ilaa 8 kala duwan oo maaragtay ah geedihii aanu naqaanay sida qamadidii iyo malabkii cinabkii iyo maaragtay apple-kii oo kala ah waa wax soo saar loo isticmaalay tiknoolajiyada casriga ee hadeertan shirkado kooban ee dunida ay isticmaalaan ee loo yaqaan nanotechnology wax soo saarka company-gan soo saaro tijaabooyin fara badan ayuu maray bulshooyin fara badan ayaa isticmaashay waxyaabaha loo isticmaalay waxa kamid ah xanuunada maqaarka ku dhaca sida cambaarta nabraha dhaawacyada maqaarka soo gaara maaragtay buulasha ama finanka yarka ee wajiga ka soo baxa waxa kamid ah cagaarshowga ama beer xanuunka waxa kamid ah afqalooca ama shimbirka wax Soomaalida qaar u tiraahdo waxa kamid ah anti aging-ka ama qofka oo da'owdu ay ka muuqato ama qofka da'da ama miduusan gaarin ha ahaato ama qofkii da'a oo aad wajigiisu u adkaaday ha ahaatee oo borodogan wax soo saarkan ka qayb qaadanayo qofkii da'diisu inay noqoto jirkiisu mid dabacsan oo da'du aysan ka muuqan inay noqoto waxyaabo u fiican waxa kamid ah waxyaabahan tufta Soomaalidu taqaana ama jilbaha iyo xubnaha kala goysyada oo qofka xanuuna waxyaabaha Soomaali ahaan aanu tijaabinay waxa kamid ah wax soo saarkan sonkortii iyo macaankii ama macaankii dhiikarkii ilaahay kuma daraade maaragtay bawasiirtii infectionkii buradii ayaa kamid ah waxyaabaha Soomaalihan aan tijaabinay natiijadeeda aanu aragnay waxa kamid ah cagaarshowdii waxa kamid ah bawasiirtii waxaas oo dhan waanu tijaabinay tijaabadoodiina bulshada qaar kamid ah isticmaashay kagana fiicnaatay aniga oo in la hadlayo waxaan u isticmaalay cabur ama wax iga soo baxay sanka dhexdooda oo qayb burada kamid ah oo neefta igu xiray aan u isticmaalay isbuucii labaad ayaan dhameystay oo aan wada isbuucii saddexaad aan rabaa inaan hadda bilaabo alxamdulillah muddo aad u dheer oo labada isbuuc iyo xoogaa kamid ah iskumaana arag wax caburo ama neef xiran iskumaana arag hadaba halkaas markaan kaga gudbo company-gu wax soo saarkiisa iyo fursadda caafimaad ee bulshada gaarsiinaya wax soo saarka ugu talagalay iyo tiknoolajiyada uu isticmaalay iyo wax soo saarkiisu wuxuu ka kooban yahay markii aan overview-ga aan ka qaadanay halka aga tagno hadda waxaan rabaa inaan isla eegno composition plan-ka ama company-gan waxaan niri bulshada markii caafimaad la gaarsiiyo caafimaadka la gaarsiinaya laftirkeeda ayaa bulshadii gaarsiisay waxay ka sameynaysaa dhaqaale sidee looga sameynaya hadaba company-gan wuxuu ku siinaa wax loo yaqaan membership package mar alla markii aan membership maqashid waxa kugu soo dhacay in loo baahan yahay registration ama in la buuxiyo file loo baahan yahay oo qofka xogtiisa laga qabto mar alla markii lagu yiraahdo qofkan xogtiisa laga qabanay ama registration baa lagu sameynayaa waxa automatically ku soo sawirmaya inay jirayso registration fee ama qiimo loo baahan yahay in lagu sameeyo registration-kan hadaba company-gan wax qiimo ah oo registration kaama u rabo company-gan kaliya wuxuu ka doonayaa inaad salis sameyso sid aad u noqoto member saliskaagana wuxuu ka dhigay saddex xirmo oo kala duwan xirmo kasteeto oo aad gashid way ka faa'iido badan tahay ama way ka weyn tahay xirmada kale hadaba xirmada koobaad ee ka bilaabi karno waxa la yiraahdaa basic
waa dee qofkii jeebkiisu markuusan wanaagsanayn uusan wax aad u gadan karin ayaa loogu talagalay inuu xirmadan galo waana $95 oo iiba ayuu qofku sameynayaa oo 2 box oo alaabta shirkadda ah oo soconaysa 2 isbuuc ayuu u isticmaalayaa haddaba labadan box ha isku yaraysanin labadan box qof ayaa macaan kaga raystay negative ayuu kusoo baxay macaan maamo bore u isticmaalaysay oo dhuunteeda mushaare kaliya ama wax jilicsan oo kaliya cabi kartay aan dhuunta intee blood pressure saartay ayaa isticmaashay hilibna cunaysa maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin so this two boxes ma ahan wax sahlan maaha labadan boxes ay arkayso wax sahlan maaha okay premium oo ah xirmada labaad qofku wuxuu ku noqon karaa inuu 380 iiba sameeyo oo u dhigantay in 8 box oo alaabta shirkadda kamid ah uu qofku iibsado ta ugu dambayso leeyahay elite xirmada ugu dambayso qofku wuxuu ku noqon karaa 140 iiba yacni 24 box oo alaabta shirkaddan kamid ah qofku inuu iibsado ayuu ku noqon karaa haddaba alaabtan aan ku leeyahay waad iibsanaysaa ee labada box ama 8 box ama 24 box laba option ah ku furan in adiga shakhsiyan u iibsato hadaa rabto markaa si iibso hadaa rabto qof qaraabadaada kamid ah xanuunsan si hadaa rabto inaad adigu xanuunsantaan adigu nafsadaada u isticmaal sidoo kale waxa kale ku furan inaad inta alaabta iibsato aad cid kale ka iibsato oo marka adiga aad soo iibsato xataa lacag intii ka badan aad siisato sidoo kale waxa ku furan in aad qof kale oo aan doonayn inuu membership helo aad soo wado kadibna alaabta aad ka iibiso halkii membership qofkaas uu qaadan lahaa maadaama uusan doonayn uu dawo kaliya doonayo aad adiga saa membership package-ka ku hesho okay haddaba membership package-kan helay marka membership package-ki helay for example tusaalaha koowaad waxaan kasoo qaadanayna waxaan ahay aniga basic waxaan iibiyey 95 alaaba ayaan iibsaday markaan iibsaday kambanigu waxaan ka noqday xirmada loo yaqaano basic kambanigan wuxuu ku siin doonaa user iyo password oo ah kambaniga website-kiisa wuxuu ka siinaya user iyo password aad xogtaada iyo information-kaaga iyo shaqadaada aad ka soo gudbisanayso oo wax alla wixii kambanigan aad macaamil ahay aad u samayso aad uga soo gudbinayso iyo password aad ku gali karto oo sababaya in adiga kaliya isticmaasho soo kale wuxuu ka siinayaa userka saddexdiisa account kaasoo kambaniga lacagta aad doonayso inaad wax uga iibsato aad Malaysia si toos ah ugu dirayso waxaad ka diraysaa userkaaga ama account-kaaga ka diraysaa account-kaaga ka diraysaa direct waxaad ugu diraysaa kambaniga qaybtiisa finance-ga ugu diraysaa markaad ugu dirto kambaniga wuxuu ku soo dirayaa warqadaas oo aad product ku qaadatid haddaba mar alla markii aad adiga kambaniga iib u samayso waxaad ka heli doontaa commission-kaagina si direct wuxuu kugu soo diri doonaa account-ka adiga shirkaddu ay ku samaysay oo aad isla markaa kala bixi karto account-kaaga sidaas darteed kambanigu wuxuu ku siinayaa account iyo pin kaasoo sababaya inaad adiga kaliya isticmaasho wax soo saarka haddaba mar alla markii kambanigu uu ku siiyo account-kaaga iyo pin-kaaga user-kaaga iyo password-kaaga waxaad diyaar u tahay inaad shaqaysato hadeertaan waxaad diyaar u tahay in aad kambanigii la macaamisho sales aad u soo xareyso adna commission aad ka hesho haddaba first step lagaga baahan yahay talaabada koowaad lagaga baahan inaad qaado waxa weeyaan adiga sidii kambaniga lagu soo gaarsiyo kale adiguna inaad laba qof u gaarsiiso for example waxa lagaga baahan yahay right and left inaad samayso qofna aad bidixdaada geyso qofna dhinacaaga midig aad geyso oo labadaada dhinac aad kala istaajiso labada qof haddaba qofkii aad bidixda geysay wuxuu iibsaday 95 qofkii aad midigta geysana wuxuu iibsaday 95 oo laayana basic bay noqdeen meel dheer ma aadin waa $190 oo iiba markay sameeyeen oo afar xabo alaabta shirkadda kamid ah ay iibsadeen adiga account-kaaga ayaa laga dirayaa $190 oo kambaniga looga dirayaa adiga account-kaaga ayaa laga dalbayaa maaragtay 4 box oo alaabta shirkaddaana markii aad 4 box oo alaabta shirkaddaana kambaniga ka dalabto lacagtiisina u dirto dadkaasuna ay afartooda box helaan user-radoodii iyo password-radoodii helaan account-madoodii iyo biinankooda ay helaan adiga iyo kambanigii ayaa isku soo haray maxaad adigu faa'iideysaa ilaa kambanigii $190 oo xareysay adigu waxaad faa'iideysaa 95 qofka bidixda uu iibiyay waxaad ka faa'iideysaa $25 iyo bar 95 qofka midig uu iibiyay waxaad ka faa'iideysaa $22 iyo bar halkaas waa isku $45 oo lacag ayaad ka faa'iideysaa labada qof ee midigtaada iyo bidixdaada iyo webka ay sameeyaan si gaar ah $45 goormaad helaysaa weeye su'aashu $45 waxaad helaysaa terminology-ga ama erayga bixinta uu kambanigu isticmaalay waxa weeyaan real time payment wax loo yaqaano ama real time payout kambanigaas wuxuu lacagta ku siinayaa isla daqiiqada la taagan yahay ما ها إسلا منتك ما ها إسلا ساعات ما ها إسلا نص ساعة وإسلا دقيقة ده للتاجين هي وحتى كمبني وقت مع برؤية وحير هذا ريال تايم وقت قال التاجين هي يقصيني كمبني وحرتت كوي بسنسة وحرتت مارتي جارية ربتت كراعسة موتات ربتت كراعسة دنا ربتت يدو كوقب سنسة هي كريجنتها هذا بمرك أدريد ليفت سميسو
mid kasta oo right and leftigaaga ka mid ah oo iibka uu sameeyey markii la isku daro oo 190 isku noqoto 190 kana $11.25 gaar ah company ka siinaya hadaba $11.25 markii lagu daro $45 waxa isku noqonaysaa $56.25 $56.25 ayuu kaaga celinaya company-gan kaliya $190 oo aad si direct company-ga ugu soo iibisay hadaba right-kaagi and left-kaagi qof walba kamid ah wuxuu si sameysanayaa laba qof sida adiguba aad u sameysatay ee 6 u heshay ayuu qof walba wuxuu rabaa 190 intuu company-ga u iibiyo inuu asaguna 6 helo sidaas darteed right-kaagina markuu laba qof uu company-gan uu iib kaga sameeyo left-kaagina uu laba qof iib kaga sameeyo oo kiiba 190 uu iibiyo adiga waxaad ka helaysaa $22 bar oo ah labada qof right-ka ka yimid iyo qof left-ka ka yimid waxaad ka helaysaa 11 qofka kale right-ka iyo qofka kale left-gana waxaad ka helaysaa $11.25 waxa isku noqonaysaa $22 iyo bar faa'iido ah oo ay shaqeeyeen adiga dadka company-gan ku soo xirtay oo aad adiga company-gan maartay gaarsiisay marketing aad ku sameysay dadkay marketing ku sii sameeyeen mar walbeeto oo team sales-kaagu u balaadho oo team-kaaga sales-ka sameeyaan u balaadho commission-ka aad ka helisna wuu balaaranaya hadaba lacag ahaan u xisaabinaynay hadaan percentage ahaan kugu sheego marka adiga aad tahay basic waxaad helaysaa 30% direct iyo 15% indirect ama wax loo yaqaan binary ama sales-ka team-kaagu sameeyo every buyer ama labadii kasta ee right iyo left ka yimaadaba 15% ayaad ku leedahay hadaba aanu eegno hadda waxaan isla soo eegnay hadaan aniga basic ahay أنا كان لبا قف بيسيغا وات ابوت هدان انيغا اهي بريميوم هدان كمانيغا ku bilaabo xirmada labaad ee premium ka loo yaqaano ay 380 ka ahayd ana keeno right and left ayagana ku bilaabo 380 ama ku bilaabo xirmada loo yaqaan premium sideedii oo kale to hadaba left-gaaga waxaad ka helaysaa $90 right-kaagana waxaad ka helaysaa $90 waa $180 isla markaa fadhiga afadhida $180 ayaad qaadanaysaa oo la dhaqaaqaysaa oo danahaaga aad ku qabsanaysaa habeenka 6 saac ee barne $45 ayuu company-gu kugu soo darayaa sidaas waxay ku noqonaysaa $225 inaad ka faa'iido kaliya laba qof oo aad company-gan ku soo xidhay hadaba dhinaca kale aanu ka istaagno hadii labadii right and left-ga aniga aan keenay ayaguna ay sideedii oo kale doonayaan inay helaan $225 oo kiiba uu karo right and left kan kalena uu keeno right and left aniga maxaa faa'iido keenaya adigu waxaad ka helaysaa $90 oo lacaga oo one oo from left iyo one from right waxaad ka helaysaa halka bayr $45 kan kaleete maarta left-ga iyo kan kaleete right-kana waxaad ka helaysaa $45 sidaas wax iskugu noqonayaan $95 mar walbeeto oo sales-kaagu sii biirane percentage-kaaga ayaad ku dhufsanaysaa oo ah every buyer ama qof kasta oo midig ka yimaada iyo qof kasta oo bidix ka yimaada labada qof kasta inaad ka helayso 15% hadaba ugu dambeyn what about hadaan aniga ku bilaabato ugu dambeysay ee loo yaqaan elite ee aan 140 sales sameeysto anigu aan iibsado personal sales oo 24 alaabta shirkaddan kamid aan iibsado hadaba hada 24 alaabta shirkaddan kamid oo qiimaheedu yahay 140 aad iibsato company-gana aad ku soo xidho qof laba qof oo kiiba uu sameynayo 140 adigu maxaad faa'iido helaysaa adigu waxaad helaysaa bidixdaada waxaad ka helaysaa 270 sales-ka oo sameeyo 140 ka midigtaadana waxaad ka helaysaa 270 halkaas waxay isku noqonaysaa $540 $540 ayaad markaas irida kala baxaysaa $135 na 6 saac ee bar habeenka ay ku soo dhacaysaa sidaas waxaad ku helaysaa $675 ayaad sidaas company-ga faa'iido ahaan aga helaysaa hadaba hadii ayaguna right and left mid kasta uu sameeysto sida adigu aad u sameysay oo $625 oo heshay hadii ayaguna doonayaan kiiba inuu $625 helo oo mid walba uu right iyo left sameeysto labadooda waxaad ka helaysaa $135 iyo $135 waa $270 oo lacag ayaad adigu faa'iido ahaan ka helaysaa oo maalinka dambe ah mar walbeeto oo team-kaaga sales-kiisa uu sii batane adigana faa'iidadaada iyo commission-kaagu uu sii badanaya hadaba ugu dambeyn walaalayaal xaggan waxa ku yaala waxa loo yaqaan leadership reward ama company-gu abaalmarin uu ku siinaya adiga abaalmarinta company-gan ku siinayo waxay u qaybsamaan stars ama maartay waxay u qaybsamaan darajooyin la galayo kan koobaad waxa la yiraahdaa racing star qualification lagu galo waxa weeyaan inaad 20,000 oo faa'iido company-gan ka hesho start from lacagta u horeysay commission aad company-gan ka hesho ilaa iyo maalinta aad 20,000 gaadho maalinta 20,000 ay ku soo xiranto oo lagu yiraahdo accumulative-kaaga ama isku dardarka waxaad lacag faa'iido company-gan ka heshay waa 20,000 maalinta lagu yiraahdo
kambanigan bishii waxaad kaga xisaabtamaysaa $3,000 ayaad kaga xisaabtamaysaa oo faa'iido oo monthly income oo commissionkaaga ka madax bannaan sidoo kale kambanigan waxaa ku siinaya wax loo yaqaan car bonus oo $150 bishii oo u dhiganta $3,150 sidoo kale kambanigan waxaa ku siinaya e-device-ka waxa loo yaqaan electronic device to mobile yahay computer yahay ama waxyaabo la mid ah sidoo kale kambanigan waxaa ku siinaya waxa loo yaqaan 5-star dinner inaad la cashayso dadka adiga kambanigan kaaga soo horeeyay khibrad ahaan kaaga soo horeeyay aqoon ahaan kaaga soo horeeyay kambanigan rag iskala waa rag network marketing distributors ka soo noqday ogne faa'iidada qofku inuu helo experience macnaha ay leedahay sababtoo ah bari waxaad u baahan tahay inaad noqoto your own pulse inaad noqoto oo aad system adiga ku gaar aad samayso sidaas darteed you have to gain experience inaad heshaad u baahan tahay haddaba waxaad la fariisanaysaa dadka kaaga khibrad badan kambanigan oo aad casho la yeelanaysaa haddaba haddii aad soo kaleeto 50,000 oo faa'iido kambanigan ka hesho kambanigan wuxuu ku siinayaa 7,500 oo monthly income oo commissionkaaga ka madax bannaan soo kaleeto wuxuu ku siinayaa car bonus $300 oo isku noqonaysa 7,800 soo kaleeto e-device-kii ama luxury watches-kii waxyaabaha loo yaqaan ama saacadaha qaaliga dahabka iyo cashadii aad la sameynaysay dadka kaaga experience badan businesskan intaba waad helaysaa haddaba sidaas ay darajooyinku u sii soconayaan ilaa ka ugu dambeeya midka ka horeeya global director ka yiraahdo qualificationkiisu waa $100,000 oo faa'iido inuu kusoo gasho lacagta helaysidna waa ilaa $15,000 bishii ambassadorku waxaa shardiya inaad 250,000 oo faa'iido ay jeebka ku soo dhacdo saad u noqoto ambassador faa'iido aad helayso celcelis ugu yaraan waa $30,000 bishii maaragtay 5-star dinnerku waa xaqi car bonusku waa xaqi luxury watchesku waa xaqi dhammaan faa'iidooyinkaasu sidaad u helaysaa ayaad u helaysaa haddaba aad iyo aad u mahadsantihiin waan soo dhaweynayaa qof kasta warbixintan dhageysanaya waan idin mahad celinayaa sida aad noo dhageysateen warbixintan aad ula socoteen qofku waqtigaaga aad u soo bixisay aad iyo aad ugu mahadsan tahay soo dhawow aniga warbixintii aan rabay inaan la wadaago age nutrition halkaas ay iga eg tahay qof walba halkan ku jira waxaan ka codsanayaa inuu soo gudbiyo su'aalihiisa waxyaabaha uusan fahmin aad iyo aad aan kugu mahad celinayaa soo dhawaada dhammaantiin